Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu ka hadlaynaa novel coronavirus SARS-2 COVID-19 cudurkaasi haatan loo bixiyey kaasi oo ah mid ka mid a groupka Coronavirus viruseskaasi ee ka dilaacay wadankaasi China suuq ku yaala magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee ku taala wadankaasi China awaakhirkii ama dabayaaqadii sanadkii 2019. cudurkani loo bixiyey COVID-19 ee ka mid a groupkaasi coronaviruseska waxaa loogu bixiyey sababta loogu bixiyey coronaviruseska waxa weeyaan waxay u eegyihiin coronka ama taajka ayuu eegyihiin marka lagu eego laabka saa awgeed coronavirus waa mid ka mid a cuduradaasi iyagu kasoo daba jooga usoo baxay sanadihii dambe 2012 mid ka mid a oo SARS type 1 kana waxaa loo bixiyey SARS type 2 COVID-19 SARS type 1 wuxuu soo baxay 2012 waxaanu jirin dad ku dhow 800 kana uu ka khatarsanaa halka uu ka soo baxay wadanka Sacuudiga magaalada Jidda dhakhtar Masri oo soo saaray uuna ogaaday Maxamed Zakariya la yiraahdaa mid ka mid ah isla cuduradani isla groupkan oo isaguna kan ka khatar badnaa waqtigii uu dhacay kaasi oo loo yaqaan isagana Maris oo wadanka Sacuudiga kaasi oo laga qaadayo geela kaasi wuxuu soo gudbay geelaya dadka halka kan ilaa haatan xayawaanka uu ka soo gudbay uu dadka uga soo gudbay aan wali la xaqiijinin ka uu yahay xayawaankaasi hase ahaatee waxa la ogyahay inuu xayawaanka soo gudbay waxaa kale la ogyahay inuu yahay nooc ka mid ah groupkaasi coronaviruseska waxaa kale la ogyahay DNA-giisa genetic sequences wax loo yaqaan ama silsiladiisa DNA-da soo isugu xidhan tahay iyo qaabka ilaa haatan uu yahay waxaa kale la ogyahay oo ilaa haatan diraasaadku ay sugayaan in COVID-19 uu isugu gudbayo dadka uu kala gudbayo saa awgeed inta la ogyahay diraasad lagu sameeyay dad ku dhow 72,000 oo uu ku dhacay waxa uu 80% dadku waxay uga bogsanayaan sida duriga caadiga ah waxaana uga baxaya isla sida duriga caadiga ah waxaana lagu talinayaa inaanay jirin iyaga dhibaato iyo riski khatar ah oo ku haya dadka 40 sano ka yar asaxaatee dadka waaweyn ee da'da ah 20% dadka uu ku dhacay 14% dadka uu ku dhacay iyagana ay galayaan xaalad loo yaqaan severe taasi oo ay keeni karo xaalado xun oo xumad qufac xuna iyo respiratory oo breathing qofka neefta ku adkaata iyo qufac xun oo ku keeni karo kaasi oo kana bogsan karo qofka oo xaalad severe xaaladaha criticalka ee dhimashada ay kamid ay ku sii dhex jirto waa xaaladaha khatarta ah kuwaasi oo inta badan ah 90% dad xanuuno kale immunocompromises ama xanuuno kale immunocompromises ay ula socdeen ama xanuuno kale sida diabetes ama hypertension ama macaan midikar iyaguna lahaa kuwaasi oo uu ku dhacay ama dadka da'da ilaa haatan lama hayo caruur inuu dilay dadka uu dilay ee da'da 40 jir ka yar tahayna waa 0.2% waa natiijo aad u yar saa awgeed ilaa haatan talooyinka koowaad ee lagula talinayo dadku waxa weeyaan inaanan noqonin qof panika oo yani halac ka qaada ama ka booda oo ilaa naxdin waaliya qaada hase ahaatee hana yaraysanin dadka dhintay dad badan oo tiro badan ayaa u dhintay isla cudurkan saa awgeed ilaa 4,000 oo qof baa haatan loo qiyaasaya si kastoo xisaabtu u yar tahay mid ka mid ah weeyaan fikirku xisaabtii fikrada ugu muhiimsan ee bini'aadamku inuu ku fakaro tahay naftiisuna ay ku degto inaan marka uu dareemo percentage-ka ama tirada jirta inta ay leeg tahay iyo inta dhimashadu leeg tahay iyo inta qaladka inta u dhimanaysa inta uu leegyahay hase ahaatee waa inaanu noqonin qof panika waana inaanu noqonin qof dhinaca kale u fakaro oo yiraahdo xama jiraan oo waxba ma soo gaarayaan oo anagu waan ka sareynaa oo waa ibtilaa gaalada loogu talagalay waa cudur gaala khuseeyana maaha cudur muslimiin khuseeyana maaha waa cudurada lamida ka kala gudba xayawaanka iyo bini'aadanka saa awgeed markasta waa in laga taxadiro laguna talagalay siyaabaha la isaga ilaalinayo waxa ugu muhiimsan inaad panic noqon marka hore qofta waashay adiga laftaadu noqon mahwuusi noqon waxa ugu muhiimsan inaad gacmahaaga 30 daqiiqadood 20 sekin ama 20 jeer ku calaalisay aad sidaa iyo faraaga soo maydho oo faraaga oo mid iyo intii aad maydhi karto baad faraaga si fiican u nadiifiso aan ku maydhin jafeer iyo alcohol wax badan oo faa'iido ay soo kordhinayaan ilaa haatan ma hayo ku sii gelin karaan bay wada jafeer iyo alcohol isticmaasho laakiin waxyaabaha yar sterilizationka waxyaabaha saasoo kale sterilizationka yar waad isticmaali kartaa ee aad farahaaga ku nadiifinayso maaska qofku uu xidhanayo sida baalkan oo kale maaska oo sanka ku xidhanayo qofku ma anfacayo mise ma anfacayo
ilaa haatan waxaa la ogyahay qofka isagu uu xanuunka qaba ee sidaa si aanu u gudbin inuu xidhaa waa muhiim. marka haddaad adigu duri dareemayso oo dareemayso inaad qufac iyo xanuun leedahay inaad xidhato, dadka kale saad uga ilaaliso macal durigaaga way fiican tahay. qofka kale laakiin ee isagu aan qabin laakiin ka baqanaya waxaa lagula talinayaa inaanu maaska isku badin. sida kalena waxaa lagula talinayaa inaanu dusha ka taaban maaska marnaba markasta, waayo halkan waa halkay wax ku ururayeen. marka waa inaanad taabanin maaska noocan iyo noocyada kaleba ee la isticmaalo ee maasaskaaba. galofiska waxay iyaga u fiicantahay inay xidhaan dadka ka shaqeynaya goobaha caafimaadka, dadka meelo jooga ay dad badan taabanayaan iyo waxyaabo ay gacantooda ku qabanayaan waa inay xidhaan marka dambena si fiican ay isaga maydhaan. ta kale waxa weeyaan hadday alaab iiga timaado jino kaliya meelo kale oo alaabtaasi dibadda ka timisaan ula dhaqmayaa, waxaad ula dhaqmaysaa inaad sweeb isku masaxdo, alaabtaasna aad iska furato, waxba badan ka qaadmaysid, waana adiguna sterilization aad isticmaasho. ta kale muhiimkii waxa weeyaan dadka qaar baa dhirtu wax ma ka taraysa, sida toonta daweynaysa, maxaybaa daweynaya waxaasoo dhan waxba kama jiraan. wax daawa iminka loo hayaa ma jiro. waxaana lagula talinayaa inaan cidna la tallaalin, waayo tallaal la ogyahay iminka oo wax ka taraya ma jiro. tallaalooyinka kale oo oftuna wax isaga ay ka tarayaan oo respiratoryga isaga ay uga tarayaan ma jiraan. saa awgeed waa inaan cidna la tallaalin, waa inaan cidna meel kale la geynin, waana inaan sidaasna loo boodsananin. ta kale ka hadlaynaana waxa weeyaan cudurkan ma laha jeenaho keliya khaas kumaha, dunidao dhan buu gaari karaa, waana cudur, waana wuxuuna la mid yahay ani cudur ku dhaca biniaadanka. taas kale waxa weeyaan horeba ma u dilaaceen pandemics lamida sida imika WHO ugu dhawaaqday inuu pandemic noqday. haaba u dilaaceen 50 milyan ayuu dilay 1918 mid loo yaqaan Spanish flu oo isaguna group kale oo group viruska ka mid ah, waana layn karaan dad tiro badan. laakiin imika waxaa laga baqanayaa maaha isla virus kale inuu yahay mid dilaa oo xoog dadka u dilaya. waxaa laga baqanayaa waayo maadaama aanaynu garanaynin inuu keeno mutations wax loo yaqaano ama dafaraad wax loo yaqaano. af Soomaaliya waxay noqonaysaa booditaan inuu keeno. waayo noocan imika wuu soo baxay. waxaan hore soo sheegnay SARS iyo MARS ay jireen oo iyaguna ay ahaayeen isla groupkan coronavirus. marka uu coronavirus uu isaga gudbo dad badan oo tiro badan leh oo dad badan ay qaadaan, waxa uu awood u leeyahay inuu soo saaro nooc kale oo isla coronavirus laakiin kan kasii xoog badan, kaasi oo keeni kara dhibaatooyinkan kasii xoog badan. saa awgeed waxa kale lagula talinaya dadka waa inay guryahooda joogaan, kala fogaadaan. meel kasta oo ay dadku ku ururaanna waxaa ka dhici kara inay dad badan ay qaadaan. maadaama ay dad badan ay qaadaanna waxaa dhalan karta inuu dhasho COVID-19 mid ka xoog badan. COVID-19 ka xoog badan wuxuu noqon doonaa allahu aclam, ilaahay baa garan kara, wuxuu noqon karaa mid ka khatar badan kan. saa awgeedna ka dilaa badan. saa awgeedna waa in laga iska ilaaliyo in goobaha dadku ay ku badan yihiin la badiyo. waa in la yareyn kara intii la yareeyay isu imaatinka dadka, sida loo yareeyay masaajidada ee loo fasaxay xaramkii ee loo fasaxay meel kasta. waa in loo fasaxo meelaha la isugu yimaado. inaga halkeenan maxay tahay sababta ijraa'aadka sidoo kale loo qaadan waayo? inaga ta koowaad waxa weeyaan horta ilaa haatan ma haysano wax aynu ku baadhno aynu ku cadayno in coronavirus u joogo iyo inaanu joogin. saa awgeed waxa keliya alwiqaayatu khayrun min alcilaaj baa layidhi. waa inaynu iska ilaalino un qofkii duri dareemayaana un dad badan iska ilaaliyo inuu dhex galo. dadkuna waa inay is ilaaliyaan. duriga mid buu la mid yahay, hase ahaatee qofkii dareemaya inuu qufa xooga leeyahay, naqaskuna ku adag yahay, waa inuu tago cusbitaalkii ku dhoweyd isagoo ilaalinaya dadka ku dhow ee isla cusbitaalkaasi ka shaqeynaya, ka ilaalinaya in isla durigiisaasi uun ka qaadaan, waayo durigiisaasa noqon kara coronavirus. hase ahaatee qofna maaha inuu boodo. dadka 80% in ka badan way bogsanayaan, 20% in ka badan xaalada ay galeen way ka bogsanayaan, 5% soo hadhay ee xaaladaha khatarta criticalka galaya iyaga laftooda uma wada dhimanayaan coronavirus. ilaa haatan tirada la ogyahay u dhimanaysaa waa 1%, waana in lamida duriga caadiga ah. saa awgeed waa duri caadiya, waxaa laga baqanayaa inuu mid labaad sii dhalo. hase ahaatee ilaa haatan khatartiisu maaha khatartii weyneyd. saa awgeed dadka waa inaan lagu jahwareerin macluumaad qalada. halkan muhiimada koowaad waxa weeyaan fakar, adeegsa caqligaaga, adeegsa cilmiga, fahan waxa uu cilmigu ku leeyahay. waxa kaliya cilmigu ku leeyahay oo kaliya ayaa saxa. waxa dadka kale ee ay akhriyayaan iyagu ha dhegaysanin. ku fakar caqligaaga, ku fakar cilmiga, ku nolow cilmiga insha Allah caafimaad baan idin wada rajaynaa iyo wanaag inaanu coronavirus cidna naga soo gaadhin.
sheergareeya fideogana insha allah sida saaxiibadiin idin kala tashadaan in cilmigan idin kala bartaan insha allahu rajo wanaagsan iyo caafimaad wanaagsan maalin wanaagsan